Al-Shabaab ayaa xalay waxaa lagu duqeeyay koonfurta Soomaaliya gaar ahaan gobolka Shabeellaha Hoose siiba magaalooyinka kale ah Hawaii, Sablaale, Xaramka iyo Arbaco iyadoo duqeymahan ay ahaayeen kuwo aad u xooggan. Waxaa la tilmaamay in ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka wadamada saaxiibada dowla ah Soomaaliya ee ka taageera dhinaca dagaalka Al-Shabaab. Duqeymahan ayaa si gaar ah loola eegtay saraakiil aad u sarsareysa oo kooxdaasi ka tirsan kuwaasi oo qaarkood abaabulaya sida la sheegay howlgallo ku wajahan magaalada Muqdisho. Magaalada Hawaii waxaa duqeymo lagula eegtay Al-Shabaab qaraxyo waday oo Muqdisho doonayay in ay soo geliyaan sida wararku ay sheegayaan. Degmada Sablaale waxaa lagu duqeeyay saraakiil ajaanib ah oo Al-Shabaab u diyaarinaysay qorshaha weerarada Shabeellada Dhexe ka socda. Magaalada Xaramka waxaa dhulka lala simay keedad qaraxyo ah oo waaweyn kuwaasi oo Al-Shabaab ku ilaalinayeen halkaasi. Magaalada Arbaco Al-Shabaab weerar qorsheysan oo ajaanib u badan ayaa lagu duqeeyay sida xogaha amniga ay sheegayaan. Duqeymahan waxaa lagu beegsaday saraakiil amniyaadka ah iyo ajaanib Al-Shabaab muhiim u ahayd sida ay sheegayaan ilaha amniga ah. War ka soo baxay dowladda ayaa lagu sheegay in duqeymahan ay sii socon doonaan inta laga jirdasiibayo kooxda Al-Shabaab oo ku xoogan deegaano ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. Meelo ka mid ah Soomaaliya waxaa ka jira dagaallo u dhexeeya Al-Shabaab iyo dowladda sida deegaanada Hirshabelle oo ay ka soconayaan dagaallo qaraar oo u dhexeeya labada dhinac. Al-Shabaab ayaa dhankooda soo celiyay weeraradii ay ku qaadayeen fariisimooyinka ciidamada dowladda iyo kuwa macawisleyda iyadoo dhowaan ay ahayd in weerar dhowr jiha ah ay ku soo qaadeen deegaano dhaca gobolka Shabeellada Dhexe. Marka la eego duqeymaha dhinaca cirka, dowladaha saaxiibada Soomaaliya ayaa inta badan soo saara warar ku saabsan in ay dilaan saraakiil muhiim u ah kooxda Al-Shabaab oo qaarkood lacago ay dul yaalaan kadib duqeymo ay ka fuliyaan fariisimooyinka ay ku xooggan yihiin Al-Shabaab iyo meelaha ay kaga dhuumaleysanayaan gudaha waddanka Soomaaliya. Shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya. Beko waxa ay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan 17 degme ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airportka Aadan Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.